فرس تيجي أو خلاص عن كرتان ورك الجيس يجي جاي سومالي دكتور كولا وحساب بدن قضبنا ورك عن الينها وقدر كورونا وحكمنا مصطفى عكسر أو خبر تجريه وشري ومكتر حيلي تجيه ويا بينه عروضه لوفيه يو بوليسكا سوماليدا أولاد ديارنايو إن lagu shubo dagaalada waqooyiga Itoobiya ka socda haddii ay xaaladdu ka sii darto ciidamada TPLF oo diiday xabad joojinta Abiy ku dhawaaqay ee nafci caaridka ah qodobadan iyo qodobo kale oo muhiim ah ayaan idinku haynaa wararkeena fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar gambarelka furo si aad u hesho wararka ugu dambeeya fideoga like garee share fideoga asxaabtaada la wadaag wixii kala bixinahana xagga hoose noogu reeb kusoo dhawaada qodobada wararka oo faahfaahsan wararkana waxaa idinla socodsiinaya aniga ah Marwo Yusuf tigre shalay wuxuu lahaa ina cagjar qalba ninkii garab taagan buu qaninaa runbay ahayd oo isaguba qaninay laakiin qaniyadii shalay muxuu ku iloobay khadar tigre oo maanta u ogolaaday inuu carruurta Mustafa xaarka ka tiro isla markaana shilimo yar darteed uu dibadda ugu dhoofiyo bal hadalkan dhagayso shalay iyo maanta maxaa iska bedelay خبر تجري نحس كل لوبي قدرتي لا جري مصطفى رنتي ومال بنك قرر استاجا أما أوهي لي أيو أدوه من هذه وأنه مسكح هذا مارك في العالم سيد الصحة عمله وشقين يسوق قفكي أعمال كوله أما واحد لقبتها أما مارك في سجال كتير أيه مارك في marka uu yahay qofkaasi wuxuu og yahay wixii maaragtay abaalka loo guday abaalka loo galwuna gudaa isaga maskaxdiisu si caawintii u shaqaysaa runtii aan waxaan aaminsanahay in uusan ahayn shakhsi dhimarkiisu uu fayow yahay oo 100% ah maalinka aad maaragtay aad garab istaagto ayuu khadar tigre ayaa maanta madaxtooyada dowladda deegaanka Soomaalida ee gobolkeedu sii dhacayo sawirro kula soo galay Mustafa Cagjarkii oo bisha u xidhnaa ee kadibna jidkii uu ku faali jiray khadar tigre ka tarxeelay saacado kooban u qabtay inuu kaga baxo doofaar shucuur la'aan baa loo cadaabaa haddaad maqasheen waa khadar tigre sabab kale oo hadda jidka u yimidna ma jirto sida ay shakhsiyaad xooggaal ah noo sheegeen waxaa lagu keenay magaalada Jigjiga in la siinayo qandaraas 25 milyan oo bir ah oo lagu yeeray waxaana la rabaa in maadaama xaalad kala guur ah la galay inuu familka Mustafa Cagjar u fududeeyo inuu u dhoofiyo dalka Mareykanka maadaama uu ganacsi halkaas ku leeyahay sahlina karo qorshahaas waa dilaal iyo malaal aan sharaf iyo sumcad toona garanaynin oo ninkii shalay xidhay jidhgilay ee tarxiilay ayuu haddana maanta hoos ordaya diinkiisu waa dhuuni isagoo 70 jir ah yuusan dan ka lahayn islamarkaana xusuusaninba codkii iyo bahdilkii shalay lagu sameeyey maantana dilaalka mangadmariga ah looga dhiganayo caku ilowsha dhowaa ma umulba sidii dhallaankiibaa lasoo sasabay ujeedka laga leeyahayna waa inuu carruuraha Mustafa Cagjar xaarka ka tiro oo raaci ka ahaado shilimo yar darteed ilaa Mareykanka khadar tigre hadduu jid waaqda quman ee laga habaysto ahaan lahaa oo uusan tima asaha laga hiddo ka yimid ahayn sida Mubashir Dubad iyo Xasan Daadhi ayuu beri hore ina Cagjar ka habaysan lahaa laakiin tima ase oo laangaab iyo ladana ah darteed buu Mustafa Cagjar u xidhay una tarxiilay haddana iimaan la'aantiisu yaqaanay oo kaalay lacaga qaado carruurahana ii bixiya ayuu ugu yeedhay khadar tigre baarkiisa Mustafa Cagjar baa fahmay oo kalaftadu kalaaday sida dameerkii kollay in waaga iyo bulsho ah intuu bannaanka u dhiga ayuu ugu yeedhi oo uu ku gumaysan xukuumadda Mustafa Cagjar ayaa ku guda
jirta qorshe la rabo in ciidanka liyu booliska Soomaalida standby ahaan loo diyaariyo si haddii ay xaaladdu ka sii darto loogu shubo dabka ka holcaya waqooyiga Itoobiya. keliya maaha ciidanka liyuga ee Soomaalida balse waxaa ku wehelinaya oo garab socda liyuga Canfarta. qorshahani maaha mid xukuumadda deegaanka ka yimid ee waa qorshe Abiy iyo axmaaradiisa toos uga yimid laguna wargeliyey maamulada labada deegaan inay diyaariyaan ciidamadooda, laakiin Canfartu ay diiday iyagoo daliishaday inay dhufaysyada xududahooda ku jiraan iskana ilaalinayaan cadowgooda iyo inaysan ciidamada Tigreegu soo weerarin. balse maamulka Soomaalidu arrintan way aqbaleen, waxayse ku dhiiran laayihiin inay ciidamada u soo bandhigaan maadaama oo ay maamulku ciidanka horay ugu shurqooleen dagaaladii Canfarta oo hogaamintoodii canfarilaysay kalsooni darro aad u badanina ay jirto inay ciidanku awaamirtooda diidaan sababo la xidhiidha dayac iyo darxumo badan oo ay ciidanku muteen tabanayaana. haddaba maxay tahay sababta Soomaali iyo Canfar ciidamadooda loo dalbaday in loo diyaariyo dagaal haddii xaalku sii xumaado? ujeedkan waxaa ka dambeeya hogaaminta axmaarada oo Abiy qorshahan u soo dhigtay maadaama liyugii axmaaradu ku dhammaadeen dagaalada waqooyiga iyo in dakanaha la wada galo oo aysan qoomiyad keli ah dakanoobin, iyadoo xaqiiqada ugu weynina ay tahay inay ciidamada TPLF ciidamadii Abiy nag ka dhigeen oo uusan Abiy maanta haynin tabar ciidan oo u babac dhigi karta ciidanka Tigreega. waxaana xusid mudan inay maamulka deegaanka Oromadu ay horay u diideen in ciidamadooda liyu booliska ee kumanaanka kor u dhaafaya inay ka qayb qaataan dagaalka waqooyi si aysan qoomiyadda Oromadu dakane uga gelin qoomiyadda ay walaalaha yihiin ee Tigreega. mana jiro hal askari oo Oromo ah oo ka qayb qaatay dagaalka Tigreega marka laga reebo hogaaminta sare ee ciidanka militariga qaybo ka mid ah oo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada. haddaba waxaa isweydiin mudan ciidanka deegaanka Soomaalida ee liyu boolisku maanta ma ogolaan doonaan in loo diyaariyo inay qayb ka noqdaan dagaalka ka holcaya gobolka Tigray ee waqooyiga Itoobiya dabkana lagu shubo iyadoo aan shalay ogeyn inay saraakiishoodii Canfartu laysay oo haadku uu 7 maalmood ka badan banaanada ku cunayay cid aasana la waayay, islamarkaana ay ciidanka darxumo dhinac walba ah dayac aad u daran iyo qoysaskoodii oo la deyriyey agoontoodii oo looga fidaray intaba ay isugu darbatay. dalka Itoobiya ayaa haatan galay marxalad aan la saadaalin karin kadib guulo 6 maalmood oo keli ah qaatay oo ay ciidamada TPLF iyo hogaamintoodu dib ugula wareegeen deegaankoodii iyo codsi degdeg ah oo ka yimid dowladda federaalka Itoobiya oo xabad joojin hal dhinac ah ku dhawaaqday iyadoo ku marmarsiiyotay inay dowladdii ku-meel gaarka ahayd ee Tigreegu ka codsatay xabad joojin, balse xaqiiqadu tahay inay tabari u horsheegtay oo laga taag iyo taalbaroonaaday ee aysan suurtagal ahayn inay codsiyadii ay caalamka oo dhan ka diiday ay ka aqbalaan hadda dowladda ku-meel gaarka ah ee Tigreega ay iyagu u sameeyeen ee aan weli maqla gaadhin. dhanka kale ciidamada difaaca Tigreega ayaa diiday xabad joojintii ay ku dhawaaqday dowladda federaalka Itoobiya, waxayna sheegeen inay dagaalka sii wadi doonaan ilaa iyo inta ay cadowgooda abaalkood ka waraabinayaan, iyagoo cadowgooda ku tilmaamay axmaaro iyo Eritrea inay yihiin. wejiga cusub ee Itoobiya gashay ayaan la saadaalin karin gebi ahaanba, waxaana loo badinayaa in xataa haddii ay TPLF aqbasho xabad joojinta inay shuruudo adag oo uusan Abiy ka bixi karin aqbalina karin la imaan doonto miiska wadahadallada, islamarkaasna uusan marnaba jiraynin wax is-afgarad ah oo goobta ka dhasha.
waxaa loo badinayaa inuu xaalku sii xumaan doono wax nabad lagu gaadhana aysan muuqanin haba yaraatee oo xaalku yahay maskii good ahaa iyo ninkii loo gargaadayay.